halkan waa istaadiya injineeriso ee degmada Cabdicaziis ee gobolka Banaadir ku soo dhawaada tabinta tooska ee kulanka horseed iyo raadsan ku dhawaad bilooyin aan la isku arag garoonka kubadda cagta ee injineeriso ee caasimadda magaalada Muqdisho waxa maanta dib u bilowday ciyaaraha horyaalka Soomaaliya oo lagu daafuray naadiyada horseed iyo raadsan ciyaartoyda labada koox ayaa dadegsiin iyo boob ku bilaabay kubadda wax yar uun kadib markii seeriga la dhawaajiyay waxtaas kama soo wareegan markii gool si aad u qurux badan looga soo shaqeeyay oo lugtiisa la heleelay ciyaartoy Abraham ee nambarka 20aad u xiran kooxda horseed waxa uu garoonka u bedelay mid sawaxan iyo reereen leh halka uu indhaha u shiday difaacyada iyo weeraryahanada naadiga raadsan ona maraya gooli waxba baraana oo lambarka 20aad horseed u qaatay durbadii hoggaan ku dhibay wiilasha away maalin horseed ciyaartan waa gooli waxba waxa uu waqtiga socdaba isku dayo badan oo ay sameeyeen xidigaha raadsan iyo horseed ayaa waxa daqiiqadihii dhexe mar kale hoggaanka sii adkeeyay ciyaaryahan Abraham oo labaystay kaas oo u muuqday in uu noqon karo man of the match cross goal horseed ayaa dhaliyeen goolkii labaad ee kulanka sheekadu waa 2 gool iyo waxba horseed 2 raadsan waxba galabtu waa galabkiisi ciyaarta ayaana qaybteedii hore ku soo idlaatay 2 iyo waxba qaybtii hore ciyaarta ayaana daawadayaal soo idlaatay 2 gool iyo waxba ayaana siinada lagu aadaya horseed ayaa ku hogaaminaya 2 gool iyo waxba qaybta labaad ee ciyaarta ayaa sidoo kale ku bilaabatay xawaare aad u sareeyo iyadoo natiijada ciyaartuna ay soo noqotay 4 iyo waxba qaar kamid ah ciyaartoyda horseed ayaa dareenkooda ka dibtay waxa ayna sheegeen in ay rajeynayaan guul la dareenka mas'uul karo xamleena ciyaartan dhilaatay kulunka 8 taamalena oo dhilay go waaye ilaa xamleena 6 gool laga dhaliyay horyaalka soo socda kooxda horseed ayaa sidoo kale hoggaan ku hayso horyaalka Soomaaliya Premier League iyadoo maanta si adkaysatay